السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي المال والبدونك أكجوكتا وحن لي هاي هبي ونكسن حلقة فيديو أدوان الصباح لقيا وإن الصباح كوتا هاي صباح ونكسن دور ونكسن قلب ونكسن ما أنت وحكالي دونا بموضوع كسابسن أما فيديو كسابسن أما فيديو نقصية أنا أدي أنا ضد صومالية دين له هل دقن قورنا له marka waxaan ka hadli doonaa barnaamij jacayl ah barnaamijka jacaylka waxa waaye macnaha sidoo ayuu ku yimaadaa jacaylka dhabta ah sidoo ayuu ku yimaadaa ayaan ka hadli doonaa raadinta jacaylku waa shil sahlan oo aad naftaada galinayso waxaad la kulmaysaa qof kuwan naftaada oo aad doonayso in waqti la qaadato markaas haddii wax walba si sax ah u dhacaan waxaad heshay jacaylka dhabta ah ee aad raadinaysay dadka oo dhan ama adduunka oo dhan waxa ay ka hadlaan jacaylka maalin kasta ama habeen kasta jacaylku ma aha mid yar waa wax baaxad weyn oo ilaa hadda aan la ogaan karin sida uu u yaalo iyo halka uu ka soo jeedo jacaylka dhabta ah wuxuu leeyahay waqti iyo ixtiraam adag ama imtixaan adag oo loo baahan yahay in laga gudbo marka sida xaqiiqda ah loo hadlaayo waa wax adag inaad naftaada ciqaabto adigoo ka farxiyo farxadda aad heli karto maalin maalmaha ka mid ah jacaylka dhabta ah iskama yimaado ee waxaa jira sababo horseeda inuu ka dhex dhasho labada qof ee jecel ee nolosha wadaagayo sida uu ugu dhow uu ku yimaado jacayl lab ah waa inaad la joogtaa muddo sanadaha qofka aad jacayl wadaag aad tihiin si aad u ogaato inuu una hubsato waxa aad haysato inuu yahay jacayl ama waqti lumis ugu dambeyntii jacaylka dhab ah looma heli karo si dhaqso ah ugu dambeyn jacayl dhab ah lama heli karo si fudeed ah sida u fahamta waxaa ka horeeya dulqaad iyo in la baro naftaada adkaysi iyo samir fog markasta oo aad raadinayso jacaylka dhabta ah waad turaanaysaa waad dhacaysaa waad ilmeynaysaa waad ciloonaysaa ilaa si tartiib ah ugu soo baxdo noloshaas ciriiriga badan inkastoo jacaylku yahay wax qurux badan haddana ma jirto cid wali xaqiiq u haysa halka uu ka dago qofka ama xilliga uu galo jirkiisa laakiin si lama awal qof walba ayaa aaminsan inuu jacaylku yahay wax ka abuurmo qalbiyada dadka markasta oo aad tahay qof jacaylku ku cusub yahay waxaad dareemaysaa baahi aad waxaad isweydiinaysaa midkaan anigu jeclahay balse qofka aad jeceshahay waa midka naftaadu doonayso in waqti badan la joogto jacaylka dhabta ah waxaa lagu dhisaa kalsooni iyo ixtiraam labaduba waxay qaataan waqti muhiim ah waa run in qaar naga mid ah ay ka aamin badan yihiin kuwa kale laakiin waayo aragnimada badan ee aad u leedahay jacaylka iyo caqligiisa ayaa laga yaabaa inuu ku saaciido jacaylka dhabta ah ma ahan mid dareen laakiin waa jacaylka dhabta ah maahan dareen laakiin waa xaalad gaar ah aad dareemi karto dadku waxay sameeyaan qalad dadku way isbedelaan qaar ayaa guuldareysta inay noqdaan lamaane iyagoo jacayl iyo saaxiibtinimo dhab la wadaaga laakiin kaliya waxaa kala fogeeya calafka intaasi waxay ahayd barnaamijka ugu horeeyay aan bilaabnay ee ka hadlaya arrimaha jacaylka sidoo ku yimaada jacaylka waa markii ugu horeysay haddii qaladaad iyo waxyaabo isku arkaan karaan noqda marka waxaan leeyahay insha Allah barnaamijyo qurux badan waa soo wadnaa arrimaha jacaylka oo si yara badan doonaa insha Allah marka waxa ka codsanaa fiidayna like saarto adoo maasan channelkana subscribe saar gambalelka shaqeysii adoo maasan peace أنا كدوني كالي أذا كدورتي كالي أذا إدقي كالي أذا إيشي كالي أبتيد جوكسو كالي أنا
ku doonay kaalay adaa ku doortay kaalay adaa ideeqay kaalay adaa yeeshay kaalay agtayda joogso kaalay